إلهي وحلي وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا وحل ورابيا ماء حميما بيكل البال ورابيا بإلهي لي وفقطع وحقويا أمعاءهم حيد مهودة إلهي كو أبوري هدو يسوي كو عذاب يسادو بحسنيسا culamadu markay ka warramayaan kuwan maanta dunida jooga markay ka warramayaan qofka bini aadamka iyo dareemayaashu waxay ugu badan yihiin diirkan sare meelaha kale ay ugu badan yihiinna waxa weeyaan waa mindhicirayda marka la jaro bay yidhaahdaan sida daraaddeed ayaa qofka caadigii markuu wax cunayo haddaad gacanta kaga gubato waxaad qaaddo ma tuurtide afku qofku ku rida afka waxaad kaga gubato intaad ka yara lamaclamacsiisaabaad iska liqdaa taa macnaheed waxa weeyaan calooshu kulaylkan iyo dhibtan hore uma dareento haddiise ay nabar leeday wax waliba way dhibaan waa sababta dadkan alsarka iyo xanuunadan le marka wax yar oo meeshaasi ay taabtaan aad mooddo in dab lagu dhajiyey ay la gelgelmayaan ilaahay ku abuuree garanaya meesha dareenkaagu uu badan yahay amcaada xiidmaha ay dilaacinayaan baa ilaahay biyaa nooca kani maxaa loo dilaacinayaa inuu cadaabka dhadhamiyo baa la leeyahy cadaabka inaad dhadhamisid daraaddeed ayaa loo dilaacinaya ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wain yastagiithuu yugaahuu bimaa'in kalmuhli yashwi lwujuuh bi'sa asharaabu wasaa'at murtafaqa hadday kaalmo dalbadaan baa la leeyahy markay qayliyaan ee kaalmo dalbadaan yugaahuu bimaa'in kalmuhl biyo fool xun oo kalmuhli ka cakri sayt ah ayaa la siinaya biyo isjiidanaya yashwi lwujuuh waa biyo inuu cabadaayo markuu caynkan yidhaahdo wejiga diirku ka tegaya baa ilaahay yidhi bi'sa asharaabu wasaa'at murtafaqa wastaftaxuu wakhaaba kullu jabbaarin caniid waxaa hoogay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kullu jabbaarin caniid min waraa'ihi jahannam يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الله وحلي سبحانه وتعالى وحا هوغي كوكستو اسوينيي وإلهي سبحانه وتعالى كما دحضيغي وحا كدنبيو هرتودا جهنم waxaa lagu waraabinayaa baa ilaahay leeyay min maa'in sadiid biyo maxay biyo qiix iyo maxaa la yidhaahdaa uskaga ka dareera iyaga yatajaracu wuxuu isku dayaa inuu qurquriyo inuu isdhaafiyo walaa yakaadu yusiiqu uma dhowaanaya baa ilaahay yidhi inuu dhuunta mariyo isaga waa la cadaabaya waa lagu qasbayaa inuu qurquriyo naf baa u geynaysa wuxuu isku dayaa inuu qurquriyo dabeetana rabbi wuxuu leeyahy yatajaracu inuu liqsiyaa buu isku dayayaa laakiin walaa yakaadu yusiiqu uma dhowaanayo inuu dhuun mariyo baa alla leeyahy subxaana wa tacaala meel walba geeraa kaga imanaysa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala laakiin haddana wamaa huwa bimayit laa tubqi walaa tadar haddana ma dhimanaya baa ilaahay leeyahy wa min waraa'ihi cadaabun ghaliid waxa kan gadaashiisa cadaab kulul baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala الله وحليه سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نارتا قدي هذا لغو مرة دمية إلى هيري كقبو إيا وحل عبتونا waxaase lagu dhadhamiyaa xamiiman waghasaaqa biyo kulul iyo qurunka iyaga ka dareeray waxaasina waxa weeyaan baa ilaahay leeyahy jazaa'an wifaaqa waa abaalmar u cuntama baa alla leeyahy subxaana wa tacala abaalmar ku habboon weeyaan waayo innahum kaanuu laa yarjuuna xisaaba baa ilahay yidhi dunida markay joogeen baanay filayninba in la xisaabi doono aayaadkaygina way beeniyeen baa alla leeyahy subxaana wa tacaala idan quraan badan baa ilaahay wuxuu kaga warramayaa waxa la cabayaa iyo waxa la cunaya jahannamo yaalla inay ka hayeen
talow huga la xidhanaya muxuu yahay ilaahay baa wuxuu leeyay haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim faaladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabun min naar yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim yusharu bihi ma fii buطuunihim waاljuluud walahum maqaamicu min xadiid kulamaa araaduu an yakhrujuu minha min gamin uciiduu fiiha waduquu cadaaba alxariiq kuwa gaaloobay baa ilaahay leeyahy quطicat waxaa loo goynayaa kaannamaa dawarwale inta la geeyey loo tafsiilinayo wax leeg looga dhigayo quطicat lahum hiyaabun min naar dhar naareed baa loo goynayaa baa ilaahay leeyahy dhar naareed ayay leeyihin yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim dusha biyo kulu lagaga shubayaa baa ilaahay leeyahy biyaha dusha lagaga shubaa yusharu bihi ma fii butuunihim waxaa ku karsamaya waxa calooshooda ku jira walahum maqaamicu min xadiid sabarada naaray leeyihin oo lagu tumayo kulamaa araaduu an yakhrujuu minha min gam mar kastoo isku dayaan inay ka baxaan gam iyo hami iyo warwar iyo walbahaar iyo dhib haysata uciiduu fiiha waduuquu cadaaba alxariiq waa lagu celiyaa oo waxaa la yidhahaa dhadhamiya cadaabka waxguba وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إلهي وحليه سبحانه وتعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد waxaad arkaysaa kuwa dembiilayaashoo maalmaha kan maalinta tan la xidhxidhay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala saraabiiluhum min qatiraan dharka loo goynayo surwaaladiiya waxay xidhanayaan waa qatiraan waa nuxaasun mudaab ama daamur ama naxaas la dhalaaliyey watakhshaa wujuuhahum annaar wejiyadoodana naar baa daboolaysa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala liyajziya allahu kula nafsin maa kasabat ina allaha sariicu alxisaab jahannamo waxaa soo cadaabi yaalliin haddana xor ma tihid oo ma carcarari karaysid oo ma leglegdami karaysid ee waad xidhxidhan tahay inaa actadnaa lilkaafiriina salaasila waaglaalan wasaciira ina ladayna ankaalan wajaxiima wajacalna alaglaala fi acnaaqi aladiina kafaruu hal yujzawna ila ma kaanuu yacmaluun khuduuhu fagulluuh ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إلهي baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala gaalada waxaan u diyaariyey silsilado iyo aqlaasha waxaa la yidhaha kuwa luqunta lagu xidho iyo saciira naar wax gubta baa ilaahay leeyay agtayda waxa yaal baa ilaahay leeya ankaalku waa xadhko wajacalna alaglaala fi acnaaqi aladiina kafaruu ilaahay wuxuu leeyahy waxaa la yidhaahdaa qabta oo xidhxidha oo jahannamo ku tuura oo dabeetana waxaa ku wareejisaan baa la yidhahaa silsilad 70 diraacan 70 dhudhun ah waxay culimmadu yidhaahdaan fii silsila baa la yidhi maaha dushaa lagaga xidhayaaye gudaha lagaga xidhxidhayaa bay leeyihin afkaa laga geliya dabadaa laga saaraa dabeetana saasaa loo taxayaa bay leeyihin ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إلهي سبحانه وتعالى وحينو المامية ميانا داركينين با إلهي ليكون إلهي آيات كيسا كمرمية كو إلهي كتاب كيسا بيني الرسول شوحي عن صافري إلهي وحلي إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون مركا قورت اللوغليو حركها قورت اللوغو حدو سلسلدينتا لوغو خيدو لوغو جيدو في الحميم ثم في النار يسجرون بيها كلول مريو دبتنا النارتا لوغو غوبايا با الله سبحانه وتعالى oo lagu oran doono war waxa caabudi jirteen ilaahay geyrkii mee ay oran doonaan waa naga lumeen bal waxay oran doonaan waxba ma aanan caabudi jirin oo muran bay bilaabi doonaan kadhalika yudillu Allahu al-kaafiriin dhalikum bima kuntum tafrahuna fil ard waxa la yiraahdaa arrinkaasi wuxuu idinku ahaaday sababtii ahaydeen dunida korkeeda kuwa kibra oo gardarro la kibra iyo wa bima kuntum tamrahun iyo wixii aad la farfaraxsanaydeen ee la ordayseen ee ilaahay u caasideen galaba la yiraahdaa albaabada jahannama fabi'sa mathwa almutakabbiriin intii kibirtay meelay u hoyata halkaas u falxun baa ilaahay leeyahay muslimiintana ilaahay wuxuu leeyahay isagoo nabigii la hadlay calayhi salaatu wasalaam fasbir sabir baa la yidhi ilaahay ballankiisu waa xaq gaal baa wax dilaya gaal baa meel orday waxba ha odhanin baa ilaahay leeyahay fasbir ina wacda allaahi xaq ilaahay wuxuu ballan qaaday waa dhab ee haddii aan ku tusiya baa ilaahay yidhi wixii aan u yaboohay wax ka mid ah iyo haddii aan ku oofsado iyagoo iska barwaaqaysan gaaladii aan cidina wax ku dhicin labada mid walba faylayna yurjacuun baa ilaahay yidhi aniga ii soo noqonaya إلهي وحلي وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آيات كاسردن إلهي وحكوت المامي النار تن ميلاي حرحرين واني حريتها السنين نيهين بل إلهي وحلي إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة والقد بولية وطيرار دير بهدر الوحرية أهل النار إلهي وحكوت المامي سبحانه وتعالى حال كودوني حالا لشيء كريم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إلهي وحلي سبحانه وتعالى قواس ونفتور يا وقيلنا ينبا إلهي إليه وهم فيها لا يسمعون وانا دقبيلي أنا وحبا مغلي مايا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وميلا بقادين يسور دوين تشيريني أهل النار كإلهي وحلي كلما دخلت أمة لعنت أختها كوحي مركي قشبا كوح دا كدن بيسي نعضشاه kuwii ay dunida markay joogtay u hiilinaysay bay nacdashaa kuwii madaxda wahaabaa nacdala kuwii adduunka balaayada isugu hiilinayo dhan kullamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha baa ilaahay leeyahay qola markay naarta gashaba kuwa kale ayay lacna u soo jeedinayaan baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala faman thaqulat mawaaziinuhu faulaa'ika humul muflixuun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون